horta wiilku waa juuraan gabadhuna waa abgaal beesha daa'uud u dhalatay wey waa abgaal cusmaan beesha daa'uud u dhalatay wey aadi dhageyst waa abgaal cusmaan u dhalatay beesha daa'uud wey hooyada gabadha dhashay waxay u dhalatay beesha murursado ayay u dhalatay beesha murursade ayay u dhalatay ee deegaanka xamar degan ama iskale ama area labadaba wadalay degan ayay u dhashay wiilku ma aha jareer weyne iyo qabiil la yasama wiilku waa boqortooyadii ajuuraan wey okay nasabada reerka ayaa laga qaaday gabadha iyo wiilka waa la wada hadlay labaduba waxay ii cadeeyeen inay yihiin ajuuraanna waa qabiil Soomaaliyeed oo la yaqaan weeye ajuuraan laba yaso labana heybsooco nolosheedina markin beesha ajuuraan meel lagu heybsooco nolosheedii markin waa xaqiiqda dhabteeda dhageysto okay halka markay marayso yaa waxa dhacday baa la yiri xaqiiqda dhabta waxa dhacday baa la yiri in gabadhu ay gabar yar tahay iskuulay tahay wiilkana uu yar yahay iskuulay uu yahay gabadhii wiilkii sida yaraantanadii annaga iyo idinkaba aan sukaas u soo marnay in la isgaadgaaday oo la isjeclaaday okay marxuumka dhintay ilaahay ha u naxariisto arrin naxdin lahayd arrin aad u xun bay ahayd arrin aad iyo aad looga murugooday ahayd si qaab daranna muwaadinka Soomaaliyeed loo dilay gacanka xaq darana ee disho laakiin waan xaqiiqda la sheegaa umada maran hawaabintana laga daayay weeyaan waxa la yiri ninkan ma sha Allah nin ladan buu ahaa oo dhaqaale haysto oo fiican buu ahaa ma sha Allah wiilka iyo gabadhan dhaqaale meesan carruur iskuul ligatay ahayd waxa la yiri odayga adeerka ilaahay ha u naxariisto ee dhintay hadda uu naga hooseeya yaa wuxuu yaro qarashi dhaqaale wax yar buu haystay la yiri wuxuu u fududeeyay wiilka iyo gabadha markii meherka isla carreeyeen ay isla baxayeen oo ismeersanayeen yuu u fududeeyay baa la yiri uu dhaqaalaha uu siiyay okay hooyada waa meesha siyaasadda waan imaan doona waxaa rabaa waxaan la siyaasadeynaya dadkii lagu wareeriyay bal anigu saan u fahmayna idinkan u fahantaan hooyo waa isku mid weeye waa hooyada kuleeto waaro kuleeto waadi hooyada kuleeto hooyadii markii la yiri gabadhaadii hebel qabiil meesha ma oolin baa la yiraahdaa wax qabiil la yiraahdo iyo wax juuraan la yiraahdo iyo wax raxweel la yiraahdo iyo wax hawiye la yiraahdo iyo wax mursal la yiraahdo iyo wax abgaal la yiraahdo meesha ma oolin hooyo gabadheedii yareed ee cuntada jikada uu karinaysay canjeerada birta magaraysa u dhawaaqaysa carruurta la korinaysay yunin la meheriyo inta meher karo wax xalaal way maamadii oo xanaaqsan hooyadii mursade waa qabiilka sida ee wax u wadaan ee u siyaasadeen badisha hooyadii oo xanaaqsiisa bulshadii jijibisay ninka dhintay Allah ha u naxariistay Axmed Dowlo la yiraahdo degmadii iyo booliskii buu wacay waa la qabtay hooyadii gabadha dhashay waa la qabtay waa la xiray xabsiga la geeyay hooyadii xabsiga ayay ku jirtaa okay waa hooyadu waa gabadha hooyadeed wey waa qabiilkee weeye waa murursada weeye gabadha la guursaday waa abgaal cusmaan daa'uud bay ka tahay waxay isku reer yihiin ninka bahasha hadda siyaasadeeyay ee gudoomiyaha ka ah gobolka Banaadir ayay daa'uud isla yihiin abgaal cusmaan laandeerayaasha muqdisho iskala weeye saas waana la socotaan okay natiijada meesha u socotona waa tagi doona insha Allah hooyadii markii sidaa lagu xiray ee ninkii booliska u wacay ee degmadii qabatay hooyada xabsi la geeyay laba wiil oo gabadha la dhalatay iyo gabadha gabar la dhalatay qarabadeeda ma qaane yaa soo baxay hooyada oo dhowr cisho xiran yaa waxay yimaadeen guriga marxuumka hadda dhintay Allah ha u naxariistay Axmed Dowlo la yiraahdo gurigiisa yimaadeen way baryeen baa la yiri sida dariska iyo dadkii u dhawaayay arrinta u soo gudbinayeen horta intaanan dilka gaarin yaa 2 bilood dib u noqonaya 2 months ayaan dib u noqonaya 2 bilood hadda ka hor hooyadu markii ay aragtay gabadhan yartee iyo wiilkan oo meelahan isla taagtaagan sida hadda isugu dhagdhagayn oo kale isugu dhagdhagan yay hooyadu xanaaqday way dacwad tagtay way erga tagtay bagarad balaadi dhageystilahay iyo odaygii wuu xanaaqay marxuumka ilan meesha malakulmood ba dadka warfinaya dhigis malakulmood ba dadku warfinaya meesha malakulmood ba wax ka waday waxa dhacday inuu yiri odayga dhiman doona Allah u naxariistay ardaalyaal ba tihiin ii dhaafa ardaaga ardaalyaal ayaa tihiin ii dhaafa ardaaga iyo dhaafi meena iyo intuu ul soo qaatay wuxuu yiri Allah u naxariisto
ونجاه السيا وادنتي شنادي إله جي سحون باللودري anigu kuma taageersan ragga in la soo qabto ya taageersana wali badkiirka la geeyo xarun ka inay dareemaan ba taageersana laakiin waan xaqiiqda la ogaada siyaasadana laga saara buunbuuninta socotana way la joojiyaa weeyaan xaqiiqda dhabta wallahi rag badan iyo dad badan baa ku fashilmay wax badan baa ku kala tagay meesha loo socdaan baan ogaay oday markuu sida yiri baa waxa la yiri maamada wiilka ee dhashay oo xanaaqsan ya oday mindiintu iska gooyay يدلك كشي الله ونحرست الرجل مركي ونكو من دي قلي ويدمشترين أيقو حيس لهاي لكن أرنتو لما بلود بيسعوتي نما كناب قال وحيس لان أرنتو أضياشي وصوص سعودو أضيقن معناها ما دام من دي كدسين ماشي دبا قبصداي حالا دهو دبا ماشي وكل علينا لكن حافظ درامر بيهيد